في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا ومعلمات كم أضأن مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا كم للعقول شرعنا أبواب المنى مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والإخلاص زاد قلوبنا نمضي ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا ciidamada dalka Japan ayaa weerar ku qaaday gobolada bari ee dalka Shiinaha dagaalkaasi wuxuu ahaa midkii ugu xoogga weynaa ee ka dhaca qaaradda Aasiya muddadii uu socday dagaalweynihii labaad ee dunida wuxuu socday muddo dhan 8 sanadood laga soo bilaabo 7 July sanadkii 1937 ilaa 9 September sanadkii 1945 dadka ku nafwaayay waxaa lagu qiyaasaa in ay gaarayaan 50% dadka ku dhintay guud ahaan dagaaladii dhexmaray dawladaha ku wareegan badweynta Basifikada intuusan dagaalka bilaaban dalka Japan waxay qorsheysay mashruuc baaxad weyn oo ay ku doonayso inay ku qabsato gebi ahaanba dalka Shiinaha xilligaasi dalka Japan waxay ka talinayeen gobolka la yiraahdo Manchuria oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka Shiinaha waa dhul dooxooyin ah oo ay buuro ku hareeraysan yihiin dhulkaasi oo hodan ku ah macdanta birta ah wuxuu ahaa dhul aad u baaxad weyn bishii June sanadkii 1937 dalka Japan waxay bilaabeen inay ciidamo badan oo u weheliyay qalab dagaal inay u dadgureeyaan jasiiradooda ku wajahan xuduudda Shiinaha ujeedadu u qarsooneed dalka Japan waxay ahayd ciidankan inay bilaabaan weerarka hore ay ku doonayaan qabsashada gobolada bari ee dalka Shiinaha ciidankan markii hore waxay tiradoodu gaaraysay 10,000 iyagu waxay soo dageen buundada ugu weyn ee marta webiga la yiraahdo Yellow River buundadani oo magaceeda loo yaqaan Marco Polo Bridge waxay 15 kiiloomitir oo qura u jirtay magaalo madaxda dalka China ee Beijing Shiinuhu waxay buundadu u yaqaaneen logo xiligaasi waxa halkaasi mari jiray xuduudda u dhaxaysay labada dal China iyo gobolkaasi ay Japan ku gumaysanayeen ciidamada Japan ee xuduudda la keenay waxay bilaabeen habeen walba inay dabrid iyo falal ah tababar ciidamada ee ka sameeyaan dhanka galbeed ee buundada dawladii Shiinaha waxay dawladii Shiinaha waxay walaac ka muujisay
tababarkan culus ee ciidamada Japan ay ku qaadanayaan dhulka ku aadan xuduudda u dhaxaysa labada dal. Shiinuhu waxay markaasi codsadeen in la soo ogeysiiyo habeenkii ciidamada Japan ay sameynayaan tababarka. Waxay u cuskadeen dabridku inuusan argagax ku noqon shacabweynaha China ee ku dhaqan dhanka kale ee buundada. inkastoo Shiinuhu qudhoodu ay ciidamadooda ka joogeen goobta, misna ciidamada Japan waa ay ogolaadeen codsigii, laakiin aqbaladii Japan ma noqon mid ay ku kala badbaadaan labada ciidan. Habeen ayaa waxaa dhacday in ciidamadii Japan ay goor fiid ah bilaabaan dabridkii iyo tababarkii ciidanka, iyagoo aanan wax ogeysiis ah gaarsiin dhankii ka soo horjeeday ee dalka China. ciidamadii Shiinaha oo mar waliba heegan ahaa ayaa waxay u qaateen in dagaal lagu soo qaaday, sidaa darteed waxa ay kaga jawaabeen in ay rasaas digniin ah ku soo furaan dhanka ay fadhiyeen ciidamada Japan. waxaa halkaasi ka bilaabtay in labada ciidan ay rasaas isdhaafsadaan. haweenkaasi oo ay taariikhdu ahayd 7 July sanadkii 1937 ayaa xabadihii la isdhaafsaday waxay sabab u noqdeen colaadii ka hortay bariga fog. muddo gaawan dawadeed waxaa joogsaday rasaastii ay labada ciidan isweydaarteen. askari Japan ah ayaa goobtiisii ku soo laaban waayay. sarkaalkii taliyaha ka ahaa qaybta uu askariga ka maqnaa wuxuu u qaatay in askarigiisu maxbuus ahaan loo qabsaday. warkaasi wuxuu gaaray taliyihii qaybta. isla habeenkii ayuu taleefon kula soo hadlay taliyihii ciidamada Shiinaha oo ay ishorfadhiyeen. horjoogihii ciidamada China wuxuu sheegay inaysan xog ka haynin askarigii Japaanka ahaa ee goobtii laga waayay. taliyihii ciidamada Japan ayaa markaas wuxuu codsaday in loo saamaxo ama loo ogolaado ciidamadiisa inay baaritaan ka sameeyaan degmada Wanbig si ay u baadigowaan askariga ka maqnaa. sarkaalkii China ahaa ayaa ka soo horjeestay codsigii ahaa in ciidamada Japan ay gudaha u soo galaan degmada Wanbig si ay baaritaano ugu sameeyaan askarigii ka maqnaa. dalka Japan ayaa waxa uu kordhiyay ciidankii kaga sugnaa xuduudda ay la wadaagaan dalka China, iyagoo qortay 900,000 oo ay ka qorteen dalka China gudihiisa. difaaci adkaa oo Chinuhu ay dhigeen xuduudda ayaa dalka Japan waxa u suuragali weyday in ay si fudud ku gaaraan guushii ay filayeen inay degdeg ku gaarayaan oo ay ku qabsadaan 3 degmood. bishii December sanadkii 1937 ciidamo Japan ah oo tiradooda ay tahay 50,000 ayaa waxay weerareen gobol koonfur galbeed xiga oo la yiraahdo Jiangsu. waxay doonayeen guushii ay ka filayeen Shanghai oo ay waayeen inay ka helayaan meel ka daciifsan. magaalada la yiraahdo Nanking oo magaalo madax u ahayd gobolka Jiangsu ayaa muddo 3 toddobaad ah lagu dagaalamay. Jabaanku waxay ku laayeen dad tiradooda lagu qiyaasay 300,000. waxaa halkaasi ka dhacay mid ka mid ah fadeexooyinkii ugu weynaa ee aadamiga laga galay taariikhda casriga ah. dhacdadaasi oo loo yaqaano burburintii Nanking ayaa waxay astaan u noqotay xasuuqii uu dagaalku ku reebay deegaamada bariga fog. أخلاقنا للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. xasuuqii ay ciidamada Japan kula kaceen dadkii ku dhaqnaa magaalada Nanking waxay bilaabatay 13 December sanadkii 1937. dalka Japan wuxuu arintaasi ku doonayay inuu argagax ku abuuro dadweynaha China si ay ugu sahlanaato guushii uu filayay oo u suuragali weyday. taasina waxay qayb ka ahayd siyaasadda uu ku doonayay inuu dalka China ku qabsado kadib markii ay u cadaatay inay ku adag tahay inuu gacanta ku dhigo dalka China. waxa ay ciidamada Japan ay weerar xagga cirka ah ku burburiyeen dhammaan dhismo hoosaadkii ay lahaayeen degmooyinka waaweynaa, ceelashii biyaha, matooradii dhalinayay tamarta korontada iyo wadooyinkii ayay burburiyeen. xitaa isbitaaladii ay ka lusheen astaantii caafimaadka iyo calaamadii laanqeyrta cas ayaa lala beegtay madaafiic.
dalka Japan awood uma uusan lahayn inuu ku maamulo dalka baaxadda weynaa ee China iyo waliba tirabadnadii shacabka China sidaa darteed wuxuu doortay inuu dhiso dawlad saaxiib ah oo si dadban uu dalka ugu xukumo dawladii uu dhisay ma noqon mid soo dhaweyn ka hesha dadweynaha gaar ahaan xasuuqii ay sameeyeen ciidamada Japan ayaa wuxuu noqday fal sumcad u kordhiya laba kooxood ee xiligaasi hogaaminayay siyaasadda dalka China kooxo waxay ahaayeen qowmiyiin oo iyagu waxa markaasi ka talinayay dalka waxaa la oran jiray Kuomintang kooxo kalena waxay ahaayeen dhaqdhaqaaqii Shuuciyiinta waxaa kordhay taageeradii ay dadweynaha ka helayeen labadaasi kooxood oo xiligaasi dagaal kula jiray ciidamada dalka Japan qorshaha dalka Japan wuxuu ahaa muddo 3 bilood ah inay ku soo gabagabeeyaan dagaalka ay ku qabsanayaan gobolada bari ee dalka China laakiin arintaasi uma suuragalin oo 2 sanadood ayay ku qaadatay China ayaa dhankooda waxay qaateen istiraatiijiyad ah ka faa'iideysiga waqtiga iyo goobta lagu dirirayo taasi oo macnaheedu yahay dhulka dagaalku ka socdo oo ah mid baaxad weyn marka lagu daro waqtiga dagaalku soconayo labadaasi arimood waxa garab siinaya ciidamada China isla markaasna waxay dhaawac iyo jab ku yihiin ciidamada dalka Japan sidaa darteed China waxay bilaabeen dagaal xoogan oo qaab Maaleysi ah dabayaaqadii sanadkii 1939 dagaal weyn oo ka dhacay koonfurta dalka China ayaa ciidamadii China waxay ku qabsadeen degmada Changsha ee ku taala koonfurta galbeed dagaalkaasi oo kamid ah dagaalada ka sheegeen dhacdooyinkii xiligaasi ka dhacay deegaanka ayaa waxa la isu adeegsaday hubka naabalka waxa ku xigay weerar ay China ku qabsadeen gobolka Guangxi ee dhanka galbeed xuduudda kala ah Vietnam dhanka koonfureedna xeebta badda koonfurta China labadaasi guul waxay dhiirigeliyeen ciidamada China oo iyagu bilaabay weerar balaaran oo rogaal celis ah December sanadkii 1941 ciidamada cirka ee dalka Japan waxay weerareen saldhigii ugu weynaa ee ciidanka badda Mareykanka ay ku lahaayeen badweynta Pacificada Shiinuhu waxay markaasi ku dhawaaqeen inay si buuxda ula dagaalamayaan boqortooyada dalka Japan dhacdooyinkaasi dawadeed madaxweynihii dalka Mareykanka Franklin Roosevelt wuxuu ku dhawaaqay 4 wadan oo ku sheegay in ay yihiin biliskii adduunka afartaasi dal ayuu ku sheegay USA, UK, USSR iyo dalka China arintaasina waxay kor u qaaday hankii dawladda China waxaa markaasi bilaabatay in saddexdaasi dal ay gargaar ciidan u fidiyaan dalka China dhulkii xeebta ahaa dhamaantii waa laga qabsaday dalka China dawladdii midowga Soviyeeti inkastoo ay gaadiid tareen ah ku gaarsiisay wixii gargaar ahaa oo ay China u fidinaysay misna waa ay ka soo horjeesatay gargaarka Mareykanka iyo Ingiriiska in loo soo mariyo xuduudda dalka Kazakhstan sidaa darteed habka kaliya oo lagu gaarsiin karo gargaarka dalka China wuxuu noqday dhanka hawada mashruucaasi oo la magac baxay kuruska dushiisa ayaa diyuuradaha ka qayb qaadanayay waxay ka soo kacayeen dalka India waxay soo dulmarayeen buuraha taaga dhaadheer ee la yiraahdo Himalaya kuwaas oo ku teedan 2900 kiiloomitir silsilada buuraha Himalaya kuwooda ugu dhaadheeraa waxay ka sareeyeen dusha biyo-badeedka 6000 mayl markay taariikhdu ahayd 8 Abriil sanadkii 1942 ayaa duulimaadkii ugu horeeyay wuxuu ka soo kacay degmada Tianjin ee ku taala gobolka Dibruugdhaha ee waqooyiga galbeed inkastoo dhammaan wixii warshado hub ahaa oo Shiinuhu ay lahaayeen ay noqdeen wax la qabsaday iyo wax la burburiyay misna waxaa jiray hub gacantoodu ku haray oo ay kaashadeen dagaalkii ay kula jireen ciidamada dalka Japan waxaa kaloo jiray kaalmo ay Shiinuhu ka heleen dawlado ka soo horjeeday in Japan ku qabsadaan
deegaanka. bilowgii dagaalka dowladaha kaalmada bixiyay waxay ahaayeen midowga Sofiyeeti iyo dalka Jarmalka. sanadkii 1937 ayaa labada dal waxay kala saxiixdeen heshiis la magac baxay Sino Soviet Non-Aggression. heshiiska wuxuu dhigayay in aysan isku soo duulin oo ay nabad ku wada noolaadaan. waxaa xigay howlgalkii qarsoodiga ahaa oo ay ku magacaabeen Operation Z, kaasi oo Sofiyeetigu uu China ugu fidinayay kaalmo ciidamadeed. waxaa ka mid ahaa farsamayaqaano, khubaro iyo dagaalyahano iyo duuliyaal naftooda huryaal ah oo ka dagaalama dhanka China. qubarada Sofiyeetiga ah ee China gacanta siinayay waxaa ka mid ahaa General Vasily Ivanovich. wuxuu asigu ka mid ahaa sarkaalkii hogaaminayay dagaalkii weynaa ee ka dhacay magaalada Stalingrad ee dalka Jarmalka lagu jibiyay sanadkii 1943. kaalmada dowladihii xulafada ahaa ee siinayeen China waxay bilaabatay waqti ay cirka isku shareertay dhimbiladii colaadii socotay. waxaa jiray arrimo xoojinayay taageerada ay China ka helayeen dowladihii reer galka ahaa. dhacdooyinkii waxashnimada ahaa ee lagula kacay dadka rayidka ah sanadkii 1937 waxaa weheliyay in diyuuradaha Japan ay duqeeyeen markab uu leeyahay dalka Mareykanka oo marayay webiga la yiraahdo Yangtze. webigaani ayaa wuxuu yahay midka saddexaad ee ugu dheer webiyada adduunka. biyihiisu waxay ka yimaadaan buuraha barafka ah ee ku yaala xuduudda bari ee China, waxayna ku qabtaan badda China. markabkaasi la dejiyay waxaa la oran jiray Banai. wuxuu daadgurayn jiray jaaliyadda Mareykanka ahayd ee xilligaasi ku dhaqnayd degmooyin ka mid ah dalka China. dhacdooyinkaasi waxay soo jiiteen in China ay gacan ka helaan dowladihii xulafada ahaa agabka dagaal iyo qubrada ka sakow. dalka Mareykanka wuxuu China ugu deeqay duuliyaal naftooda huryaal ah oo la dagaalama dalka Japan. raggaasi oo loo yaqiinay Flying Tigers ayaa waxay buuxiyeen meeshii ay duuliyaashii midowga Sofiyeetiga ugu jireen dalka China. weerarkii xooganaa ay Jarmalku ku soo qaaday midowgii Sofiyeetiga ayaa hakiyay deeqdii xagga duuliyaasha ay China ay ka heli jireen midowgii Sofiyeeti. taageerada Mareykanka ee China ku aadaneed kuwooda ugu milgaha cuslaa waxaa ka mid ahaa waddo ay ka dhiseen dhulka buurileeda ah ee u dhaxeeya dalalka India iyo China. waddadaasi oo loo yaqiinay Leather Road ayaa waxay ka mid ahayd agabkii lagu jebiyay Japaanka kuwooda ugu weynaa. muddadii uu dhismaheedu socday waxay ahayd 16 December sanadkii 1942 ilaa 20 Maarso sanadkii 1945. waddadaasi ayaa dhererkeedu ahayd 436 kiiloomitir. qarashka ku baxay ayaa lagu qiyaasaa 148 milyan oo dollarka Mareykanka ah. waxaana halkaasi la soo mariyay hubkii ay China u adeegsadeen dagaalkii weynaa oo ay dhulkooda kaga xureeyeen dowladii dalka Japan. haddii aysan waddadaasi jir lahayn suuragal ma noqoteen in hubkaasi la gaarsiiyo gacanta dagaalyahanadii China. dabyaaqadii sanadkii 1944 weerar balaaran oo ay soo qaadeen ciidamo xoogan oo dhanka dalka India lagu diyaarinayay muddo dhowr sanadood ah ayaa xuduudda galbeed ka dhacay. ciidankaasi oo hub iyo tababar ka helay xoogagii xulafada ayaa waxaa hogaaminayay General Sun Li-chen oo lagu naanayso Romelkii bariga. dagaalka ay la galeen ciidamada Japan waxaa ku soo biiray ciidan kale oo ku dhooda gacan ka helay xoogaga xulafada. ciidankani dambe waxa ay ka yimaadeen gobolka la yiraahdo Yunnan ee koonfurta galbeed oo waxaa hogaaminayay General Meng Yu. labadaas ciidan waxay ku guuleysteen in ciidamadii dowladda Japan ay ka fogeeyaan xuduudda China ee waqooyiga dalka Burma. مرت سريعا وانقضت أعوامنا في ساحة
xagaagii sanadkii 1945kii ciidamada Japan waxaa laga kiciyay gobolka Guangdong ee ku yaala xeebta koonfureed ee dalka China dabadeedna dhanka waqooyi ayaa loo riixay ilaa laga gaaray magaalo madaxda labaad Shanghai kadib ciidamadii Sofiyeetiga oo soo talaabay gobolka ku yaala xuduudda waqooyiga Manchuria iyo qaraxyadii otomaatikada ahaa ee lala beegsaday labada degmo Hiroshima iyo Nagasaki ayaa waxay soo afjareen awoodii boqortooyada dalka Japan أحبتي جهدنا فتقبلوا منا عظيم تحية daawadayaal waxaa halkaa inooga eg barnaamijkeeni taxanaha taariikhaha dunida barnaamijka waxaa isku soo dabariday Dr. Sadiq Enow oo aan mahad gaar ah u celinayno sidoo kale xagga farsamada waa saaxiibkayga Nuurdiin barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdifataax Xuseen Guley intaan barnaamijka xiga toddobaadka dambe aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh